Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan heel shacab t v qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tegay dalka Kenya islamarkaana tegay magaalada Muqdisho safar qarsoodi ahna halkaasi ku tegay ayaa lagu xiray garoonka Wilson Airport ee magaalada Muqdisho maxay tahay sababtu waan idiin soo gudbin doonaa heshiis qarsoon oo dhex maray madaxdii ahlu sunna iyo madaxweyne Qoorqoor Macalin Maxamuud oo isaga baxay Dhuusamareeb kuna sii wajahan magaalada Garowe waan idiin soo gudbin doonaa Axmed Ducaale Geele xaafna waxaa la sheegay in uu heshiis rasmi ah la galay hogaanka sare ee maamulka Galmudug oo uu hogaaminayo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor warkii oo dhan ugu yaraan 8 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya kana soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya ee dhulka Soomaalida ee degto ayaa lagu qabtay garoonka Wilson Airport ee magaalada Nairobi kadib markii ay safar qarsoodi ah ku tageen magaalada Muqdisho telefishinka Citizen ee Kenya laga leeyahay ayaa wariyay in xildhibaanada oo hadda lagu hayo garoonka ay sabtidii diyaarad qaas ah ku tageen Soomaaliya iyaga oo wada hadal sir ah la qaatay hogaanka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba sirdoonka Soomaaliya ila wareedyo ayaa sheegaya in booliiska Kenya ay heleen xog ku saabsan in xildhibaanadaas ay Soomaaliya tageen kadib markii ay martiqaad u fidisay hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya baarayaasha booliiska ayaa doonaya inay ogaadaan ajandaha kulankooda Soomaaliya maadaama xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya uu aad u xun yahay 8 xildhibaan ayaa waxaa su'aalo laga weydiinayaa nooca safarkooda inuu ahaa mid si rasmi ah dowladda u ogeed iyo inuu ahaa mid iyaga u gaara iyo sababta loogu wargelin afayeenka baarlamaanka dhowr baabuur oo ay leeyihiin qaybta dambi baarista ee booliiska iyo qaybta ka hortagga argagixisada ayaa goorsii horeysay maanta waxa ay tageen garoonka Wilson Airport iyagoo halkaasi ku sugayay xildhibaanada Soomaaliya ka yimid ee u dhashay Waqooyi Bari Kenya dad badan ayaa wax iska weydiinayaan xilligan waxa ku soo beegi kara in xildhibaanadaasi xabsiga la dhigo ilaa iminka magacyada la soo gudbiyay in xildhibaanadaasi ay ka kooban yihiin ayaa waxay kala yihiin Kulow Maalim Axmed Khaloosh Ibraahim Cabdi Rashiid Qaasim Maxamed Hire Cumar Maalim Bashiir Cabdullaahi iyo Aadan Xaaji kuwa oo la sheegay in ay yihiin kuwa haatan ku xaniban garoonka diyaaradaha ee Wilson Airport isla markaana dowladda Kenya ciidamadeeda dambi baarista ay ku wadaan baaritaano xooggan oo salka ku haya waxa ay ka soo wada hadleen sirdoonka Soomaaliya iyo xildhibaanadaasi Soomaali Kenyaanka oo muddo hal maalin ah safar ku joogay magaalada caasimadda ee Muqdisho wixii war ay ku soo kordha waxaad kala socon doontaan wararkeena dambe biidhnillaahi kariim fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino heshiis qarsoon ayaa dhex maray madaxdii ahlu sunna iyo waliba hogaanka sare ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoorna uu hogaaminayo wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa sheegaya in madaxda ahlu sunna ay diideen inay ka qayb galaan xalfadda caleemasaarka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hogaamiyihii ahlu sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa u ambabaxay safar dhinaca magaalada Garowe isagoo sii mari doona magaalada Gaalkacyo waxaana la xaqiijiyay in uu ku wajahan yahay magaalada Jeddah ee wadanka Sacuudi Carabiya halkaas oo uu markii horeba degnaa Macalin Maxamuud ayaa si rasmi ah u diiday inuu ka qayb galo xalfadda caleemasaarka taasoo uu ka codsaday madaxweynaha ay dowladda taageersan tahay ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Macalin Maxamuud ayaa Axmed Qoorqoor u sheegay inaysan suuragal ahayn ka qaybgalka xalfadda haddii lagu qasbana uu xalfadda ka sheegi doono in balamaha looga baxay laguna qasbay inuu ka qayb galo xalfadda dhinaca kale Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Sheekh Cabdirasaaq Al-Ashcari ayaa labaduba ka cudur daartay inay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ee Galmudug sida ila wareeti lagu kalsoon yahay ay warbaahinta u xaqiijiyeen madaxweyne Qoorqoor ayaa dadaal dheer ku bixiyay sidii madaxdii hore ee ahlu sunna loogu dari lahaa xukuumadda cusub ee Galmudug balse xubnaha laga itaal roonaaday ee ahlu sunna ayaa diiday inay ka qayb galaan
isla markaana ay fuliyaan codsiga madaxweyne Qoorqoor. Ugu dambeyn waxaa lagu heshiiyey in Macalin Maxamuud loo fasaxo safarka Jidda iyo sidoo kale in Sheekh Al-Cashcari iyo Sheekh Shaakir loo ogolaado in ilaalo gaar ah la siiyo oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo mas'uul ka noqonaya amniga ciidamadaasna ay yihiin kuwa si gaar ah iyaga u maamulayaan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aad kala socoto Hiil Shacab TV. Hiil Shacab TV waxa uu ku tirsan yahay waa taageeradaada. Madaxweyne Xaaf ayaa la sheegay inuu heshiis la galay hoggaanka sare ee maamulka Galmudug ee dowladda federaalka Soomaaliya ay aqoonsan tahay ee uu hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo u warmay VOA-da ayaa sheegay in heshiis ay la galeen Axmed Ducaale Geele Xaaf oo horey uga biyadiiday doorashadii Dhuusamareeb ka dhacday. Ciid ayaa carabka ku dhuftay in Xaaf oo sheegayay inuu weli yahay madaxweynaha maamulka Galmudug ay ku qanciyeen waxyaabihii uu ka tabanayay maamulka. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo qodobada ay ku heshiiyeen, isagoona tilmaamay in si wadajir ah dhowaan loo shaacin doono heshiiskaasi. Wadahadalkan ayuu sidoo kale xusay inay qayb ka qaateen isla markaana qayb uu ka yahay ballanqaadkii madaxweynaha maamulka Galmudug garabka dowladda Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ahaa inuu dhameynayo dhammaan tabashooyinka laga qabo maamulkiisa. waa qayb ka mid ah wadahadallada ballanqaadkii madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye, waxaana naga go'an inaynu la fariisano cid kasta oo tabasho qabta si aanu u udubno Galmudug loo dhan yahay oo aan khilaaf ka hor gudbanin, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka. Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inay isku afgarteen in Xaaf iyo hoggaanka Ahlu Sunna ay ka soo qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Galmudug. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo hoggaanka sare ee Ahlu Sunna ay isku dhiibeen dowladda kana tanaasuleen mowqifkooda hore sida ay shir jaraa'id ku sheegeen. Galmudug ayaa u muuqata inay haatan gashay weji cusub oo ay uga gudbayso khilaafaadka la degay maamulkaasi, kaasi oo dad badan ay isha ku hayeen sida xilligan uu uga gudbi karo maamulkaasi khilaafaadka adag ee soo laablaabtay ee maamulkaasi had iyo jeerba muddooyinkan uu wajahayay, iyadoona Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynaha maamulka Galmudug ee aan weli xil ka wareejin uu u muuqdo in haatan mar kale uusan jawaab ka soo saarin hadalka ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ee fadhigoodu yahay caasimadda maamulkaasi ee Dhuusamareeb. Kenya ayaa duqeysay xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee Ceelwaaq. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn xalay saqdii dhexe dayuurad military oo ay leedahay Kenya ay la eegatay xarun ay shirkadda isgaarsiinta ku leedahay gudaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Duqeynta oo ahayd mid xooggan ayaa si gaar ah waxay uga dhacday deegaanka Xiise Guur oo 20 kiiloomitir u jirta magaaladaasi. Mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee howlgala Ceelwaaq ayaa VOA-da u sheegay in ilaa 11 gantaal la beegsaday xarunta shirkadda Hormuud, isla markaana uu haatan socdo baaritaano ku aadan khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dadka shacabka ah ee la soo darastay cabsi aad u xooggan, isla markaana intooda badan ay bilaabeen in halkaasi ay isaga barakacaan. Kenya ayuu sidoo kale ku eedeeyay inay ku soo xadgudubtay dhulka Soomaaliyeed, wuxuuna ku goodiyay inay jawaab degdeg ah ka bixin doonaan. Inkastoo uusan soo bandhigin cadeymo dhammaystiran oo ku saabsan in dowladda Kenya ay geysatay weerarkan, haddana horey Kenya ayaa waxaa lagu eedeeyay inay si kasa u burburisay xarumo ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Soomaaliyeed ee Hormuud, iyadoona arrintan weli Kenya war rasmi ah aysan ka soo saarin. Muddooyinkii ugu dambeeyay Kenya waxaa loo arkayay inay weeraro ka fulinayso deegaanada dhaca xuduudda ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya. Weeraradaasna waxaa khasaare ba'an uu ka soo gaarayay shirkadda isgaarsiinta Soomaaliyeed ee Hormuud. Hormuudna horey ayay u sheegtay in arrintan ay cabasho rasmi ah ka gudbin doonto, walow wasaaradda isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in si degdeg ah arrintan wax uga qaban doonto. Welina waxaa muuqata in aysan waxba ka soo naasacdaan, laakiin duqeyntii xalay waxay ahayd mid khasaare fara badan uu ka soo gaaray guud ahaanba shirkadda isgaarsiinta Hormuud xaruntii halkaasi ay ku lahayd. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, asxaabtaada la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Hiil Shacab TV waxa uu ku tirsan yahay waa taageeradaada. Intaana waxaa inooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen Hiil Shacab TV.